masaajidka Al-Imaan ayaan joogaa. waxaan booqasho ku tagay wadanka Denmark magaalada Copenhagen. waxaan la kulmay dad khiyaar ah oo magaalada Copenhagen degan. ayaga ayaan wax ka weydiin doonaa barnaamijka bulshada wadankan siduu ahaan jiray xagga Soomaalida dhinaca shaqada iyo maanta sida ay dhinaca shaqada ku yihiin. wadankan aad isku furay dhinaca shaqada marka loo eego sidoo kalena xagga waxbarashada aad isku furay. dad badan waxaa la kulmay tagaasi leh. waxaa la kulmay dad badan basas wada Soomaali ah. waxaa maqlay dad fara badan oo markaasi haddii hal dumarka hore oo ka shaqeeya meelaha dhul dhaqid oo kaleete dukaamo ay leeyihiin oo xitaa maqlay. marka ugu horeysa adeer baan soo dhaweynaya. adeer kusoo dhaweeyay cadda voice of Islam magacaaga noogu bilow. waadhowahay magacayga waa Nuur Cumar Cali. waxaan deganahay wadankan Denmark caasimadda Copenhagen muddo adiga ilaa iyo 20 sano ku dhawaada. laakiin wadankan waxaa imid aniga 1 December 1995 ilaa muddadaas waa ku noolaay. hadba sanad walba hadba heer ayaan soo maraynay. laakiin alxamdulilaahi hadda waqti xaadirkan wadanku waa noo furfuran yahay. dad badan oo Soomaaliya waa shaqaale noocay rabaan ha ahaadaan. qaar basay wadaan, qaar taksiay wadaan, qaar taksiga ayagaaba leh, qaar ii sheeg nadaafadda iyo layaamal aabbaaya ka shaqeeyaan. marka kulli alxamdulillah waa noo furfuran wadanka. bulshadu si nidaamaha 50% hadday Soomaalida aysan shaqaynayn 50% waa shaqaysa hadda shaqaalo waa gartay. soo dhaweynayaa adna magacaaga noogu bilow. bal wadankan markii hore wuu xirnaa dadka Soomaalida marka loo dhinaca shaqada iyo waxbarashada hadda wuu furfurmay. sababtaas maxaa la dhihi karaa ayaa keenay magacaaga noogu bilow. aniga magacayga waa Nuurdiin Ibraahim Cumar Duqow. Nuurdiin Duqow waxaan joognaa xaruntan usuul iyo masaajidka Al-Imaan magaalada Copenhagen ku yaalo oo aan ka tirsanahay guddiga. Denmark waxaan joogaa muddo 20 sano ku dhow. badankii waxaan wada joogay magaalada Copenhagen. runtii waxbarashada wadankan weligeed waa iska furneed oo qofku wax baranayo waxbarashadu waa free weliba lacag lagu siinaa. ardayda lacag ay qaataa inkastoo ayna badnayn. laakiin shaqada waxay kala leedahay heerar kala duwan. waxayna ku xiran tahay dawladda markaas timaado iyo qaabka wadanka u maamusho. marka hadda waxaad moodaa waayadan dambe in siyaasadii xataa ay ka imaanaysa dhinaca bidixda oo socialkii wadanka xukumi jiray uu isu bedelay liberal dhaxal u tagay wuxuu isu bedelay xisbi dhexe. marka taas waxay kaliftay marka maanta doorashada hadda bishii hore la qabtay waxay kaliftay in xisbiye uusan weligii la wadaagin dawlad uu la wadaago. waxaa la sheegay 7 inay mar wadaageen asaga iyo xisbiga Finista la dhaho oo dhinaca kala ahaa oo dawladda kula tartami jiray. laakiin hadda odayga kale xisbiga ka baxay oo xisbi mudaraad la dhaxsameystay asaga dawladda wadaageen 2 group la hajira siyaasiyiinta waa laga tagay علشان lacag darteed. waxa kale in shaqo abuurka ay muhiim u tahay ku tusayso maalin la dhaho Steward Day oo fasax ahayd 350 sano ku dhawaad yaa la rabaa hadda sanadka soo socda 2024 in meesha laga saaro lacag darteed. dawladdu waxay sheegtay in 4 bilyan oo koron lacag ku dhow ay ku baaqato maalintaas bas 2024 sanad ku sii sanadka 23 waa la qorsheeyay dadku ay qorsheysan badanaa. laakiin marka fasaxyada meesha ka saarayaan si lacag dawladdu u hesho dadka loo shaqaaleysiyo. marka 2008 wixii ka dambeeyay ilaa hadda wadanku wuxuu noqday wadan shaqo oo sidii hore ma ahan sidii 2009 uu ahaa jiray. marka dadka xamaalatay u badan yihiin waa la shaqeystaa. Soomaalida marka u soo noqono Soomaalida wadankan degan waxay u badan yihiin dad xoogsata darawaliinta meelaha oo warshadaha wax ka shaqeeyaan. Soomaali waxaa jirto ayaga shaqooyin leh dukaamo leh tagaasi leh oo ayagu shaqooyinka ayaga leh. marka ma badno laakiin waxay u badan yihiin dad shaqeysto generationadii hore oo dadkii yimid wadanka. laakiin dadkii meesha ku koray ama ku dhashay xirfadley ay u badan yihiin. haday gabdhaha yihiin oo kale gabdhaha waxay u badan yihiin waxa la yiraahdo suublash ama kalkaaliso caafimaad. wiilashuna waxay u badan yihiin dhinac kasta waxbarashada. gabdhaha sidoo kale inkasta gabdhaha la gaaraynin haddana laakiin dhalinyarada meesha ku kortay ama ku dhalatayba way ka duwan yihiin aabayaasha yimiday dhanka shaqada dhanka aqoonta dhanka wadankan waa wadankoodii ayaga. laakiin odayaasha awal iska fadhi jiray generation koowaad oo fadhiidka ahaa hadda sidii hore ma 10 sano u dambeysay wadanku wuxuu ahaa wadan shaqo.
marka laga yimaado taas siyaasiyan yani wadankan wadan aad u fog waa dhinaca xigo maxaa la yidhahdaa midigta siyaasadiisa oo ajnabiga siyaasadda ajnabiga marka waxay u tahay doorasho kasta waxay u tahay dhaxbitaal oo xataa xisbiga bidixda oo hogaamiyo oo socialka la dhaho social democrat wuxuu gaaray heer uu xisbiyadii cunsuriyiinta la mid noqdo hadday noqoto deganaanshaha oo dadku qaataan hadday noqoto sharciga hadday noqoto baasaboorka shuruudo lagu xirxiro dadka wadanka laga saaro dadka oo laga ceshto sharciyaday hadda markii ugu dambeysay 2017 malana 1200 oo Soomaali ah ala dhahay sharciga laga ceshana marka dhalinyarada badanaa way carareen wadanka markii dadka ugu dambeeyay sharci qaatay ceyrta dadka qaato kala sharciya lagu soo saara marka siyaasiyan wadanka waa wadan aad u fog oo ajnabiga aan laga jeclayn laakiin kulli waqtiga sheegi doono 20 sano u dambeysay waxaan ku jirnay xaalad siyaasadeed oo cunsuri ah صح waa gartay Soomaali badan baa wadankan kulli kaam ku jireen qaarkood ma jiraan qaar isku u laabto ma jiraan dadka qaar markii sharciga laga ceshtay qaarkood waxay dalbadeen inay iskood isaga laabtaan oo la kaalmeeyo la siiyo devolution ama qatuo dad waxa celiska la siiyo waa dadkii codsaday oo dadna waa iska tageen meel aadan ay dhul ma naqaano waa iska tageen markii sharciga laga ceshtay laakiin xaqiiqa waaye dadka qaar iqaamada aan permanentiga lahayn ama aan baasaboorka lahayn sharciyadii waa laga ceshtay dad aan naqaanaaba ku jiro oo sharciyadii laga ceshtay laakiin meel ay aadeen ma naqaano marka hadda xilligan la joogo waxaan arkaynaa dukaan badan furan basas baa la wadaa dhinaca marka dhinaca Soomaalida marka loo eego dad isku xirma yihiin marka loo eego iska warheynta Soomaali ahaantu wax problem ma jiraan waa isku xirnahay waa sheekaysanaa waa kaftanaa waa wada cabnaa wax oo macnaha hadda weyn social ahaan dad isu yimaado isdhexgalo adigu u jeeday oo sheekaysto isku farxawaad ninba ninka la sheekay yaqaan la sheekaysta bulsho ahaanna waa u sheekaysanaa taas wax dhibaataa ma leh laakiin waxaan nooga ficneeday wadankayna oon leenahay ilaahay hanoo hagaajiyo sababtuna waxay tahay for example aniga shakhsi ahaan dadka waxaan ahay Soomaali ku shaqaysan jiray xirfadda lahay qof kasta oo iga jeedo idaacadani ninkii nool oo yaqiina Soomaaliga oo yaqaana waxaan ahaa nin garaash baabuurta lagu alxamo lagu rinjiyeeyo makaanika baabuurta yar baasiinka lagu sameeyo leh magaca garaashkiina waxaa la jeedaa farsamada baabuurta Nuur Tobacco marka waa ku faraxsanahay in wadankaynu uu hagaago oo aan nabadii aan shalay lahaynay aan helno ilaa anigu waxaan ka hadlaa intaan wadanka dalka ka bacdi dowladii dhaxmarkay dhacaysa dhashamihii dad ka hor wax ku bartay oo shaqaysahayaan wadankayga inuu sidii noqdo oo aan 9 saac habeenimo anoo shaqeyn gurigayga tagi karo kana soo bixi karo aad aan ugu faraxsanahay intana markii ilaahayna soo raray oo wadankan qaxooti ku soo noqday أنا أهان وإلا في عنيها بولش أهان وإلا في عنيها شخص أهان ده كان كم قلاموجي أنا أقول جي ما أكين واحد عنصري هون لكم ما جبت. صح. وقدم بنتي ده كذا ورا إذا عدى فويس فاصلة. أما النرويج هالجوجان أما دنمارك هالجوجان أما عالم هالجوجان هذا كان قدم بي عدو مرسيني سيد ميديا محرم قرن نوردين. والله إني هو الدنيا waxay iska noqotay adduunyo kooban oo social media ku jirto mugti صح dadka Soomaalida marka waxaan leeyahay dad akhlaaq leh noqdo صح qofka wuxuu dhibaayo ka ilaali adiga shakhsiyan صح yani siyaasiyan qof dad siyaasad ah wax ka sheegi karta dad xisbi ah wax ka sheegi karta wadan dad laakiin wuxuu qofka waxa shakhsiyadiisa ah hebel waa saan aad ugu talax tagtay dhalinyaro u badan yihiin Soomaalida 70% sida la sheego laakiin waxa naga dhintay akhlaaqda gabar yar hadda inta ku kortay aan Soomaali lagii oo soo noqotay halkan aan macallin u ahaa mar suuq quraani af Soomaaliga waxaan dhigi jirnay waa arki doontaa xarunta xarun weyn oo صح ما شاء الله weydiiyay marka wax uu tiri Soomaaliya ku naqanay wax baan u sheeshay waxay u tiri Soomaaliya dadka inta jooga ka fiican صح maxaa dhacay dagaalka iyo dhibaatada iyo waxaas meesha aan ka cabsanahay inay sheegayso ma yitiri Soomaaliya waa yeel iyo yar waxay tiri waa caytamaha
waana volia dad gacanta ka horeyso marka Soomaalida marka mushkiladda haysato waxa waaye ma ahan wax hadda yimid oo wax dhaqankooda ku jiro صح in qof dilo ka xoog badan yahay صح kan laga xoog badan yahay inuu caaytamo صح marka caayda waxna kuma tarta adiga laakiin waxay dhimaysaa dadnimada dadka Soomaalida marka waxaan rabnaa inay horta afkooda hagaajiyaan rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam al-muslimu man sallama al-muslimuna min lisani wa yadi muslimka koowaad waa qofka gacantiisa iyo carabkiisa laga nabad galo marka af iyo adin hadii aan laga nabad galin islaamnimada maxay tahay marka qaraxa iyo dhibaatada iyo mushkiladda weyn waxay ka bilaabatay hoos marka waxa marka bilawga asaaska ah la rabaa in la joojiyo waana qof walba isaga inuu ismaamulo adiga ilmahaaga iyo waxa ka adagta gurigaaga inta u sheeg dadka afkaaga ka xiro maxaa ku yeeray wax ku yeeray oo Soomaalidana aad ugu rabaa inuu sheego toogsiga joojiyo dhaqan aad u xun waay qof wax isii inaad tiraahdo adoo awoodo inaad xiraatid oo adoo awoodo inaad wax kasbatid inaad qof wax isii dhahdid waxay noqotay dhaqan caadi ah oo mujtamaca uu ka siman yahay waxa loola baxay shaxaad waa ceeb qofka baahan oo dhiban oo tabarta yar waa in la kaalmeeyo waa waajib waa sadaqo waa la iska rabaa waa xoog marya ma laakiin qof dhan oo weyn oo xoog leh oo shaqaysan karo inuu u soo baxo inuu dad wax isii dhaho waxay dhimaysaa dadnimadiisa dilaysaa midda kale aan ku daro waxa dadka wax siiyo oo dibadda joogo anaga kow kana dadka lacagta u dirna waan dilnaa soo qiimay qof kasta oo la biilo oo wadanka joogo ma shaqaysto waxna ma qabsado dadka wax qabsado oo shaqaysto oo nool oo magaalada iyo wadanka wax ka qabsado waa dad aan dibad loo jiro dadka dibadda loo jiro wax yar oo la siiyo ku filan yihiin kuwa inta joogane oo aan shaqaysan oo dawladdu ay keebto wadamadan Yurub jooga ceerta la siiyo ma koran ayagana dadka hadda yimiday waxa arkaysa qofta Talyaaniga ka yimid oo sharci ku lahayn wadanka aan joogno maqaayado ka shaqaysanaa shaqo kale galaa boqol lacag soo galayso midkii yaroo miskiinkaan wax yar kala siiyo ceerta inta imaad maqaayad la fariisano shaaha ku cabaa oo ku qaylina maanta dhan maxay yeelay waa la koobay wixii loo siiyay oo ku filan marka waxaan rabaa dadku inay naqanin dad wax ku nool wax la siiyo wax kasbo adiga wax raadso afkaagana laga nabad galo markaas aan dhigi karnaa Soomaali maxaa ka qaldan hadda mar Soomaalida wax weyn ka qaldan Soomaalinimada wax weyn ka qaldan marka niyo waxa la rabaa in dib loogu noqdo barbaarinta dugsi quraanka ka soo bilaab ilaa jaamacada dagaal bal dugsi sare qof dhigto la garaacay xagee ku aragtay 20 jir Soomaaliya ka jirta ulo wata macalinka dugsiga sare dhigo kan yarka oo shan jirka oo sabiga oo waxba galin macalinka haystana ulo wata markaas waxaan sugeynaa nabad xagee nabad ka sugay qof 20 sano la dilay nabad ma naqanayo qof oo ma naqanayo qof bini aadan caadi ma naqanayo waxaan soo saaraynaa marka dad wada waalan dad la dilo wada waalan soo saar marka waa in dib loogu noqdaa barbaarinta dadka Soomaaliyeed marka waxa ka wada sharciyada iskuulaadka wax laga bedelo dugsi quraan oo dhan waa kow waa in la baabashaba dugsi quraanku waa in iskuulka lagu daro sida caadiga waa in macalinka la fiiriyo maskaxiyan ma fayuuya mawaalanya waalidka ilmaha macalinka u geysanayaan horta mawaalanya ma soo fayuuya qofa hadda dhaw sanadkii hore sanadkan Facebook ka arkay gabar yar oo 5 jir oo ul ku dilay kow kaga siiyay macalin xaafad xamar jidil Allah xamar hala soo qabto macalinka hada xaq qofka marka mushkilada tahay waxa qofkan mawaalin yahay ma fayooyahay ma la dhahay aan kugu dareeday xilliga aan leeyahay quraanka aan barnaynay macalinka quraanka ayaa barashada biyaha lagu cabad qaansan barashada tiibirta hadda salaad buu tukanayay markuu sujuudo baashi birti buu ku tooray ninka wiilka madaxa u xirnaa birti madaxa kaga dhacday marka macalin madaxa kor u soo qaaday oo soo fadhistay oo Allah ba yiri wuxuu arkay wiilkii dhiig ka socdo madaxu ku dib u laabtay markaas uu arkay cunugii dhacay wuu carab macalinkii aabiin bistood soo qaatay marka waxyaalaha dugsiyada quraanka ilaga bedelo taas ka mid ah runtii dad badan oo ku tariyay nidaamka waxbarashada Soomaaliya dhan qaldan qof isweydiinayna male ولا سياسي ولا ضد ولا علماء ولا واحد ويدينا ماله واحد اسكو قبسنا علماء وحير اسك بسيطه التحيات كسان مال لها فرتسان مال يلا لغا ما هدلاي عنصريته dadka masaakiinta lagu la dhaqmo ma guursano ma geeyno langaab way midgo way waxa la sheegay tirada badan wadaadka ma hadlaa markiis dilka wadaadka hadlaa markiis xuquuqda ilmaha xuquuqda dumarka dhiban waxaan dadka ganacsiga jaadka waxa mushkilada wadanka taalo way weynta way ka weyn tahay waxaan yar oo la isku haysto waxaasna waa waxa dhalay al-shabaab al-shabaab hadii laga tagana al-jinni kala imaanay ma dhamaanayaan intii dhibka jiro
انت دب كان جرو ويجراين الشباب يض صح وي هذا الشباب كورو قامي كوحده جردي صح وي جب هذا جرتي صح وي دولة ميليتري والنا جرتي شفتها جرتي مشكلته وشفتها جرتي وحنا نو ايمانايا صح وشباب كويس كما دلن صح dad kan wixii loo yimaado loo meersha lagu qaadaa اللغة صح وي marka mashruucan waxbarashadeen waxtu aan dib loogu noqday barbaarinta Soomaaliya صح وي maxaa ku yeeray dadka dibadda jooga صح qofka dibadda joogo oo waxaan dhihi lahaa anigu meesha aad joogto horta deg صح ha wareerin ilmaha guurka faraha badan jooji waa la guuray qofkan adiga waa bixi kartaa aabaha صح waddan kale tegi kartaa صح ilmaha waa celin kartaa صح waddan kale u celin kartaa laakiin Soomaaliya u celi waa la gartay waddan Soomaaliya u dhow Kenya kale hadda anagaaba yeelana Kenya gay waa la fahmay صح Djibouti gay waa la fahmay صح waxaa geysay waddan carbeed Masar la aaday waa laga soo noqday Kenya la tagay waa laga soo noqday Suuriya. Ingiriiska la tagay waa laga soo noqday kana war adiga ilmaha meel gay صح meel Soomaali joogto oo ula carartay gay صح ma aha mo muslim Denmark waa jooga islaam صح وي مسلم مصر laga raadinayo ma fahmi karaan islaam Pakistan laga raadinayo ma fahmi karin صح waxa waa Soomaali iyo dhaqankaaga iyo Soomaali martaha gay wadamada Soomaalida joogto ilmaha marka la wareerinayo la wadwada la iska dhaaf hadii meel ay u guurto meeshaada iimaanso maxaa soo haray hadii la guura ilmaha la wadayo ilmaha waalidka inuu raaca fiican anu ka dhowti dhiban oo inta la celshay oo waalidkiisi lagu celshay maxaa la yiraahdaa inta meel lagu celshay waalidkii halkan uga haray xagga asagoo cuqdadeysan oo ka iimaana oo dadka neceb baadiyad ilmaha kaligood la celinayna sax ma صح way qaldinta marka waalidka marka reerbaadinimo ku jirto Soomaalida waa iska caadi oo dadkan dad reer guuraa waa mugta wada soconaa anaga socodka ceeb ma noo ahan laakiin waxa fiican in la xigmadeeyo صح hadaa soconaysa adiga aabaha socod kaliga raadi meel dhaanto reerka u rabto صح laakiin ilmihiya celinaya sanad kadib waa soo celinaya hadana sanad kadib meelan geynaa hadana sanad kadib waa soo celinaya sax ma way wareerayaan صح noloshooda waxa la qaatay Denmark inay ku koraan Denmark iska joogan baadiyad Norway ku koraan Norwaydood iska joogan صح Europe tan ay degan ku koraan dhaaf ma aha ma go'aanstay inay celisaha guur rar صح ha soo celin wax kasto dhaco laakiin ilmaha ama hooyadood ha wado ama aabahooda wado ilma kaligood la wadaayo absolutely waa qaladka ugu weyn oo la galo baadiyad waa tala fiican qof aan dhalin ilmo in loo geeyo sax ma صح ama hooyada ha noqoto ama aabaha ha noqoto ama habaryar ha noqoto ilmaha hadaa celinaysid hooyadood ha la socoto صح aabahood ha la socdo ما شاء الله tala fiican way tala fiican buu nasiiyay nuudin adeer halka u dambeeyo talada guud ee siinaysa dadka Soomaaliyeed ee ka daawanaya TV-ga Voice of Oslo talada u dambeeysa aad gaarsiinaysa maxay noqon kartaa bismillaahi raxmaani raxiim aniga talada u dambeeya waxaa waaye Soomaalida ku wixii Ilaahay uu u calfay inay ka soo tagaan Soomaali ay in Yurub ama Mareykan ama inta yimaadiin Ilaahay ha ku xawlo inay afka waxa wanaagsan waddankeena waa hagaagsan yahay Soomaalidu waa dad fiican inay dhahan horta Allah ku duwo oo waxyaabaha aan afka u wanaagsan ay afkooda ka dhaafaan ajirna uga soconin waxaan kaloo leeyahay dadka Soomaalida niyada ha gastaano waddan kale oon Soomaali ahayn inaan lahayn waddankeena wanaagiisa ha laga shaqeeyo hana la macnaha respecti gareeyo dowladda ka dhalata dowladda rabta ama ta hadda tale haata ama ta ka dambaysa ama tukoos haata hala respecti gareeyo dowlad xun dowlad la'aan laantaa tan fiicanna way imaan doontaa taas ayaan kula talihaa insha Allah dhalinyarada soo baxaysa ee aan arkin in waddankan ay dowlad lahaa jiray dowlad baxane ha looga sheekeeyo historiada waddanka ha loo sheego in waddankan waddan ammaana la shaqaysto diiniyana wanaagsan oo ahaa jiray ilaahayna naga badbaadiyo dhiigga muslimka oon ka dhiganay jawaan bariisoo ka raqiisan yahay marka ilaahay taas naga badbaadiyo annaga ayaan Soomaali ahaan waddankayna markaan caruurta uga sheekayno oon dadka uga sheekayno waddan wanaagsan ka dhigno إن شاء الله أدي أدوانكم هذا علنيا وقت قارئة TV لقاءتين لودي واحد على مع سندين إن شاء الله السلام عليكم إن شاء الله